ka daawo moobilkaaga gacanta wararka iyo barnaamijyada Bulsha TV haddaba taabo Play Store-ka moobilkaaga kadibna ku qor xarfaha Bulsha TV taabo install si aad u soo download gareyso kadibna fur abkan Bulsha TV gudoomiyaha xusbiga mucaaradka ee cud injineer Faysal Cali Waraabe oo maanta ka soo qayb galay kulan lagu xusiyay maalinta xuquuqul insaanka isla markaasna ay soo qabanqaabiyeen ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soolja waxa gudoomiyaha halkaasi hadal ka jeediyay waxa uu kaga hadlay xaaladda guud ee dalka yaabana xilxilay hada waxa ku tusay in meesha qasantayba way qasantay Soomaaliland laakiin waxa weeye waxa uu sheegay wajh runtii way jiraan laakiin dadka sameeyay dawladii may sameeyeen wadadii bay qodanayaan sameeysanayaan iskuulkii bay sameeyeen iyagu iska bixinayaan laydkii caafimaadkii yani waxaan deliver gareynaa umadeena 28 years kaas ma jiro we deliver nothing المدارس دي سبب نحن ما وقتها لكن government system government هو اللي بابين يدون كل استعمالية وحلتها هي مكان هداد حركة وكشقين هذه أد موجود هذا الدولة الإنجليزية نفسي أودو هذه أد بيوش عشان وحنا ترتم ملك استوى بوليسيا security حاجة إن قران صايا ميديا لكن فقدت إلى الشقية ما لهن الشردة الشقية مشكلة هي صح وهي capacity أيان ما أنت institutions كده كمان حقيقي capacity ما له capacity عند القوة ذكرناه ما ده حد ماشي جوك ما أنت ما له إذا كمان أنت وبدن شعبية إذا كان واحد رقادسي قبيلة فويس كده صدو صابح لها ودمدي سنتين وشرائط كانوا شرائط كنت شيء تهاي بريسبل له عد كنا ماشي كمان سومالي ما أنت سومالي المالين أي كخطر بدنتها ما شرته ومن أوجين لا إحنا ما حنا ندير بهالقاضي لا ودرجة إن السيحينية وحوي وحكلوا إن هجرة حوي وحالك للسارين qarankii iyo leaderski adoo careysan dawladda mucaaradka ah ayaa kala saaran wixii dalka waxyeeliyay wajiga sumcadiisa iyo qofka waxa sidoo kale uu eedeymo u jeediyay gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland kaasi oo ku dhaliilay dhanka ansixinta komishankii cusba ee doorashooyinka Soomaaliland waa kan gudoomiyaha arrimahaasi ka hadlaya executive isku urureen marka qofkii hay'adda ka ilaalinaysa de executive xukuumaya hada qaamaanu soo qaadayaa maanta dawladda muranku jiray waxaan u tagay gudoomiyaha maxkamadda cadaaladda dastuurka oo isla gudoomiyaha maxkamadda sare waxaan ku yiri todobada lixda qof la sameeyay sharcigi lagu soo abuuray ma fiicneen waan la isku haystaaye hadaarin baan ku yiri inta laga heshiinayo sharciga baad haysaaye gudoomiyaha ogta guurtidan waxaad ku tirahaa extension aad sameynaysaa ma jirto oo aan wax technical ah gudoomiyihii asaa ku kala tagnay Kenya tagaya isagii baa uu soo labistay oo dhaariyay anaga laazim waxa ku tusisaa ilaalin lahaa dastuurka ilaalin lahaa madaxweynaha uu tagan lahaa madaxweyne si waxaan waa la isku haysaa qaarna sharciyada ay jibiyeen in wax xeer ku hayay todobadiina ma dhamay lix baa la soo magacaabay jooji isagii baa u quweeyay laana waxaan ku yiri telefoon soo diro dal gaara samaysateen tii la wada waa ka tagteen bal xuduudiisa ay soo sheeg baan ku yiri marxali duxaale Cumar Shabash telefishinka bulsho magaalada Hargeysa